Soomaaliya ayaa qiratay in Somaliland ay kula wareegtay hawada Somaliland iyo qaybo kamid ah hawada Soomaaliya. Hay'adda duulista iyo hawada ee Soomaaliya oo maanta soo saartay wargelin ama notice to airman waxay ku cadaysay in lagala wareegay gacan ku hayntii iyo maamulkii hawada sare in ka badan 60%, iyadoo diyaaradaha u sheegtay in hadda wixii ka dambeeyay ay soo wacaan lambarada telefoonada shirkadda Hormuud ee satellite-ka u furan ee Satcom, taasi oo baalmarsan sharciga ay hay'adda ICAO ay u dejisay hagista duulimaadyada rayidka ah. Sida lagu sheegay nootamka kuna cad maabkan idin muuqda ee hawada sare Firejet, waxay hay'adda duulista Soomaaliya cadaysay in laga faramaroojiyay maamulka airspace-ka intiisa badan ilaa laga soo bilaabo marinka Fade to Babem, Raas Casir ilaa degmada baxdo ee gobolka Galgaduud, 2 Bomigis to Masbi, Qandala ilaa Bohoodle, 3 Arshi to Demgo, Wajaale ilaa Laas Qoray. Hore waxay hay'addaasi u soo saartay wargelin ama nootam 13 February kuna sheegtay in lagala wareegay 150 maylis oo Hargeysa iyo nawaaxigeeda ah, balse haddeer maamulka hawada sare 60% ee ay gacanta kula hayso Hargeysa. Artan Cabdalle, wararka iyo warbixinaha Sahan TV, magaalada Hargeysa.